way ka muuqataayo Axmed Ruush halkan uu ka muuqdaa qaabkiisa iyo diyaar garowgiisa waxaan wareejinayaa 610 nin iyo sidii caaqilkii hore sheegay 40 baawo waxaan ku wareejinayaa sarkuxulanka warfaafinta kuna wareejin doona sharanka ciidanka qaranka Soomaaliland iyo wasiirada waana kuwa fuliyaashoodii aad iyo aad u mahadsan ciidankani hor jooga oo ay ka muuqato diyaar garow iyo diyaarsanaan aad moodaba inay waxa ahaayeen ciidamadii hore marka halkaas soo maray waxaan moodayaa in aanan wali gaarin ciidankii madaniga guutooyinkayga dhex socdo iyagana waxaan uga mahadnaqayaa cid kasta oo tacab gelisay haday madax dhaqameed tahay ganacsato haday tahay haday dumar tahay haday waayeel tahay oo ka soo jeeda beeshan waxaan kaloo mahadnaqayaa ciidankan halkan hortagay taagan oo muddo sida la sheegay halkan ugu dhabar adeegay inay difaacaan qarankooda iyagoo oo wax xuquuq aan lahayn taasina waa wax Ilaahay looga mahadnaqo maantana dawladoodii iyo madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaraddoodii gaashaandhigga iyo taliskoodu ciidanku ugu abaal gudo inay ka mid noqdaan xubnaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland la xuquuq noqdaan la xaq noqdaan aan mahadnaqa koowaad siinayaa ciidanka quruxda badan leh ee muddadii halkan ay joogeen tacabka badan iyo hawshii loogu talagalay ka shaqeeyay sida wanaagsan waajibkoodii uga soo baxay waxa iyagoo mahadale gudida gaaf oo halkan iyaguna jooga waxa kaloo aan mahad celinayaa hadday tahay ganacsato iyo dhammaan dadkii tacabka iyo hawsha wax ku lahaa waa u mahadnaqayaa kelmadda mahadnaqa waxa kaloo iyagana aanu u mahad celinaynaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaaminaya madaxweynaha qaranka Abdulrahmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxaynu uga mahadnaqaynaa wax muddadii yareedii uu joogay wixii uu qabtay oo uga mahad celinaynaa wixii uu qabtay way ugu weyntahay maanta ciidamadaas geesiyaasha inuu abaal gudo oo ciidamo qaran ka dhigo oo ay xuquuq yeeshaan golaha wasiirada iyo janalka iyo intii la shaqaynaysayna iyaguna waa mahadsan yihiin habar jeclo qaramaynta dee waxaa laga soo bilaabay sanaad soo waa soo marteen halkan 3 daafur bay leedahay mid way leedahay waxa weeye maanta habar jeclo galbeed ciidankii ugu horeeyay ee lagu daafurayo waa ciidankan gaashaamuureed Faarax Cabdullaahi intii kale waa daba socota habar jeclo intii kale daba socota taas waxa weeye maanta waxaanu iyo furaynaa waa taariikh maanta taariikh labaad bay leedahay waxay leedahay waa goobtii raggan geesiyaasha ay difaaca kaga jireen ee qaranka ka difaacayeen goobtii maanta lagu qarameeyay wasiirada janaka ciidanka waxaan ku wareejinaynaa 610 qalabkoodii u dhayahay oo madaxdoodii wata oo dalka difaacay oo wadankan oo dhan lagaga hurdo laba qodob oo kala loogu lifaqo gaadiidkan wareejinaynaana waa gaadiidka halkaas soo safan nin kastaaba isagu waxa sheegtay maantana 40 gaarina waa wareejinayna labada qodob ee halka ciidankaasi waxa weeye annaga qodobka koowaad waxaan noo ahaa inaan dawladda isbarbar taagno ciidanka qaranka ciidankaasi maanta oo ciidan qaran noqdo annaguna hormood baan u mukayntan galbeedka u nahay kuwa hore ciidanka qaranka ku wareejiyay ciidanka madaniga lagu mahad celinaynaa kuwa naga dambeeyana waxaan leenahay si hufan oo gobolnimo ku jirto oo aan habsan lahayn ku wareejiyo wara maadsantiis ciidan yar iyo ciidan daayar midna ma ilaahay waxaan u barayaa in ilaahay barakeeyo waqtigiina baa soo gaadheene ilaahay waqti uu ardi siiya waxaan idinka baahanahay oo aan idinka doonayaa inta idinku wareegaya ila qarannimada ilaahay siiyo idinkuna quruxdiina ilaalisaan ina ciidan jira noqotaan waxaan ugu mahad celinayaa sida qiimaha leh ee ay marka ay isku darmeen ee mid waliba uu yimi noogu qiimeeyeen ee noogu ixtiraameen inaanu waxa weeye maanta ku qaramayno oo ay xuquuq yeeshaan aan ku difaacno waxaan u mahad celinayaa ciidankii waran la ahaa ee naga aqbalay ina ay guryahoodii ay tagaan aan xuquuqdooda iyana u raadino xilligooda ay nagu sugaan waan u mahad celinaynaa haddii aanay nagu ixtiraaminna saaka sharaftan maanaan lahaaneen iyana waan u mahad celinayaa ciidanka saaka aan wareejinaynaa waa military labadaas loo wees ciyaartay istabar iyo rag military cadaalad baa ku dhex jiray
tixgelinteeda dawladdaanu faraynaa nala joogta inay qiimeeyaan sida ay u eg yihiin madax iyo majo si aanu dhisaynay baanu la shaqaynaa imikana u mahadnaqaynaa sida ay yeeshay iyo halka ay hawsha ka bilowday ayaa nagu filan aanu kula shaqaynayna aad iyo aada ugu mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan cabdiraahiin maxamed cabdilaahi ciro oo gartay in ciidankan qaranka uu ku wareejiyo ciidanka madaniga sababtu waxay tahay dowladdii hore kulmiye cabdiraxmaan muuse biix cabdi hogaaminayey marka ciidanka qaranku soo jooga waxaa ka kooxsaday 2,000 askar caynamaan ku wada hadalay isagii jamhuuriyadda dowladdiisa way diideen wuxuu madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka somalilan gartay inaan laba ciidan iska barbar dhigsan karayn waxaan u mahadnaqayaa ciidankayga halkaa fadhiya ee tan iyo maalintii halkaa aanu joognay ee galgal aanu nimayo difaacaynay ee farasla joognay ee shangeed joognay sida kala dambaynta leh xushmadda leh iyagoo ciidan madaniya ah aanu u kala amar qaadanaynay ee aanna dhibayn ee dulqaadka annakuna aanu u lahayn ee iyaguna samrayey ee dalkooda u samriyey ciiddooda u samriyey ee qaar u dhinteen kuwaana waan u mahadnaqaya waxaan leeyahay somalilan meel kastay joogto ha jirto annaguna waa u taagannahay horena waa isugu taagnay iminkana waa u taagannahay inaan u mahadnaqo qurba joogii habeen iyo maalin soo diraya lacagta ee barbar taagnaa aan ka wakiilka ahaa inaan u mahadnaqo intii ay soo wadeen waxaan kaloo u mahadnaqayaa anoo ka wakiila ciidanka iyo guddida hablihii dumarkii la-aantood aanay ciidankan halkan joogeen ayaan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo gacan naga siisay oo ugu mudan yihiin taliyayaasha halkan jooga jiida qorlugud iyo ciidanka qaranka oo iyaga la-aantood aan ciidankana aanu maaragtay istifaaceen ayaan u mahadnaqayaa xaaladii uu ku samaysana maadaama dastuurkanu siiyey in xoolaha iyo dadka iyo dalkaba dowladdu difaacdo runtii dowlad markaa buuxinaysa booskaasuna ay timi oo aynu runtii sababta aynu wareejinay taataa waajib qaran baad gudateen waajib aad leediin baad gudateen waxa aad gudateen caarkiinna madaxdiinna iyo hantigiinna inaad difaacataan inaad u dhimataan mar labaad iyo mar saddexaadna waad u taagantihiin waan idinku hambalyeenayaa taliye aad iyo aad baan kuu soo dhawaynaynaa halkan waxaa lagu qaramaynayaa ciidamada beeleedka madaniga beelaha axmed faarax faahiye iyo beyle ciidamadaasoo markii horeba ka howlgalay qadiyadda jiritaanka somalilan xukuumadda somalilanna waxaan ugu hambalyeenaynaa hubka dhigista iyo qaramaynta ay jamhuuriyadda somalilan ka bilowday intii uu soo gaaray burburkii nagaga dhacay gobolka sool ee laascaanood taasoo ah siyaasadda cusub ee xukuumadda uu hogaaminaya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi taliya ciidankaa nagala wareegtay astaantoodii waxay ahayd dawaco laakiin maanta waxay isu bedeshay astaantii qaranka ayay isu bedelaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waan ku hambalyeynaynaa waa taariikh cusub iyo bilow cusub oo isaga u hirgalay annaguna waanu kula shaqaynaynaa sidaa beeshu iyo ciidanka madaniga ay dadkiiyo dalka u difaacayeen ee beeshuna ay u taakulaynaysay ee aanu goobaha ugu jiray maantana si niyad sami ah ciidanka intaa leeg iyo gaadiidka intaa leeg ay ku wareejinayaan qaranka waxaan idinkaga mahadnaqayaa isxalqaanka isxalqaanteen waxaan idinka mahadnaqayaa dareenkiinna niyad wanaaggiinna dhiiranaantiinna dhiiggiinna ficilkiinna inaad isukaayo xeelqaanteen oo idinka badan aa halkan u timaadeen 2 sannadood aa u jiifteen si aa u difaacdaan oo noo difaacdaan oo dalka iyo dadkaba u difaacdaan hadday siyaanya berigii u gashay waddadii isku xidhi jirtay ceerigaabo iyo burco oo miisaanka ugu weynee bari ay noqotay waxaan u malaynayaa madaxweyne cabdiraxmaan cirana miisaanka ugu weynee 5 sane ee aynu imika doorannay uu fuliyey ee ku guulaystay isagoo aan 2 bilood ama 3 bilood 2 bilood joogin bilba joogin uu goostay inay noqon doonto taa uu ku guulaystay ciidamada qaranka inuu habayn iyo kordhin iyo hagaajin ugu sameeyay bay noqon doontaa shalay waa dagaalamaseen waxaad u dagaalamaseen deegaankiina iyo sharaftayna u dagaalamaseen qaranka idinka oo ku tiirsan reer maanta waxaad dagaalami doontaan idinka oo ku tiirsan ciidanka qaranka magaciina ka guuray reernimo oo u guuray magaca qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo militariga waa maalin aynu runtii marxalad ka guurayno oo aynu marxalad kale u guurayno
runtiina ay tahay in sidaa la yeelo oo halkaa aynu ka dhaqaaqno oo meel kale u dhaqaaqno shalay waxaad ahaydeen ciidan reer ku abtirsada laakiin maanta laga bilaabo saacadda waxaad noqonaysaan ciidan qaran oo maxay ahayd ku wareega ciidanka qaranka oo qaranka kaalintii uu kaga jiray ee hore mid labaad oo ka sii culus iyo mas'uuliyad qaada waxa qabiilku inama deeqo qaranka ina deeqa ciidan baad noqotay discipline baa laaga baahan yahay inaad maqasho kala dambeynta ciidanka inaad barato sida ciidanku u kala dambeeyo ee isu dhageysto isu maqlo inaad taa raacdaan waxaad xerada tababarka ku jirtaan ayaa ku soo kala baxaysaan rag ba halka darajo kala soo bixi doona dadka ku nool deegaankan oo ay ugu horeyso magaalada Qorlugud oo ahaa dadkii aad dhabarka ku hayseen ee idin soo gurmarayay ee biyaha idin siinayay cuqaasha iyo waxgaradka guddida guud iyo dhammaan mas'uuliyiinta reerka ee ka soo shaqeeyay arrintan muddadana gacanta ku soo hayay tacabka badanina soo galay ee duruufta ay ku kaliyeysteen ay haysay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waxaanaanu ballan qaadanaa inaan mas'uuliyaddii aad haydeen ee aad hayseen inaanu idinkala wareegnay maanta aad iyo aadna ugu mahadsantihiin maanta waxaa ka guuraysaan magacii aad lahaydeen SSB baa ka guuraysaan waxaana u guuraysaan magaca Somaliland ay wada leedahay ee ah ciidamada qaranka ayaa u guuraysaan haddii Ilaahay ka dhigo Somaliland bay noqonaysaa xuduudaheedana insha Allah taala ayaa sugmi doona nabadna way wada noqon doontaa insha Allah taala taasaan ku wada shaqeynana tacab badan baa geliseen duruufo badan baa la soo tacaasheen oo ciidankani leeyahay culays badan baa guudkiina saarnaa maanta waxaanu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa in culayskaasi uu ku wareegayo xukuumadda wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka waa culays aanu ku faraxsannahay dowlad ahaan inaanu kala wareegno shacabka culayskii ay dareemayeen ee ah inay ciidan xukumaan oo duruufahooda iyo darahooda maamulaan waxaa muuqata in tacab badan la geliyey waxaa muuqata quruxda hortooda ka muuqata iyo habsamidoodu inay tahay wax laga shaqeeyey oo in badan waayeelkii ay ka soo jeedeen iyo deegaanadii ay ka soo jeedeen ay muujiyeen dadaal badan oo maanta hortayda yaalla aniga farxad labaad bay ii tahay inaan in badan ciidaman iyagoo madanaya aniguna aan ahay oday deegaanka ah aan dhex joogay marar badan hor imi maanta anigoo ah wasiirkii gaashaandhigga inaan la wareegayo oo aan u wareejinayo inay noqdaan ciidan qaran oo helo xuquuqdoodii iyo xaqoodii ay muddada dheer baadi doonayeen oo dowladihii ka horreeyey aanay u awoodin in dowladda tani ay u awooddo